waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo kulay muuqa garatay oo markiiba waxa maskaxdaada ku soo dhacaya ereyga ila meerayso kani waa mujaahid cabdi ibraahim cabdulle oo ku caanbaxay ereyga ila meerayso ereygan ila meerayso wuxuu bixiyay 26kii bishii 10aad sanadkan 2019 markaas oo mujaahidku ka hadlayay goob ay rag odayaal ah iskugu yimaadeen isagoona ku hoga tusaaleynaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isbarbardhigna ku sameynaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayuu yiri ereygan ila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii Muuse way soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo macallimiintii baa xidhan musheekhdii baa xidhan suxufiyiintii baa dabadda u yaacay in farmaajo maalinba wuxuu ka degaa dal maalinba dal innaguna waxaynu ka degnaa maalinba balood maalinba been 17kii bishii 11aad sanadkan 2019 ayaa la xiray mujaahidka waxaana la xiray waqti fiid ah isagoo guriga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ee Axmed Dhagax laga qabtay isagoona la ogeyn sababaha loo xiray mujaahidka balse la sheegay xarigiisan in uu ka dambeeyay ereygii uu adeegsaday ee ahaa ila meerayso kadib markuu 10 cisho uu xirnaa ayaa la sii daayay mujaahidka 26kii bishii 11aad sanadkan 2019 waqti habeen ah isaga iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxaanu leenahay u dhaqaajin maynay fulaadhoosha ka adkaysta waa inaynu dadka ka riixnaa ila meerayso ila meeraysadii way dhammaatay waanu kuu sheegnay macmiilha ka dhiganin taliyaha saldhigga waan u mahadnaqayaa inkastoo ila meeraysada beeha haddaba ujeedada waxaas oo dhan aan u soo xusnay ayaa waxay tahay ama warbixinteenan ay ku saabsan tahay ereygii sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 ee hirgalay sida uu qabo mid ka mid ah siyaasiyiinta dalka odagaas waan maqlay kelmad buu ku soo kordhiyay siyaasadeenni ila meeraysan la yiraahdo marka waxa weeye siyaasadda kelmad baa sanadkiiba siyaasadda kelmad baa ku soo korodhay moogtay asagoo marka kelmad buu soo kordhiyay ila meeraysan la yiraahdo de marka ila meeraysadaasi cilmi bay ku dhisan tahay marka wuxuu yiri Muuse waxaan la meeraysanine kalba milinkii farmaajaha meel buu ka tagayay adoo han ugu la meeraysan Hargeysa xaafadda buurta kala jeexnay bilaayi bolod hebel han ugu la meeraysanine nala duul buu yiri marka taasi horta ay tii xigmad ahayd lagu qoslay marka waxa weeye nin xigmad keenay oo xigmadiisana ay meel martay ayaan arkaa ninka ma aqoon anigu wijigiisu ma nimka telefishinada iyo ka arka social media waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay kelmad bad ku soo kordhisay siyaasadda ereyga ila meerayso ayay bulshadu si isku mid ah ugu wada filciliyeen hadday noqoto majaajilistayaal abwaano siyaasiyiin dhalinyaro odayaal dumar caruur iyagoo fiidiyooyin yaryar ka wada sameeyay ereyga ila meerayso waxayna ku soo wada bandhigeen fiidiyoyada bartaha ay bulshadu ku xidhiidho ee social media waana kuwan qaar ka mid ah dadkaasi waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii Muuse way soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa la isla meeraysan maayo ku soo dhawaada adeega ila meerayso taabo hal si aad u meeraysatid taabo laba si aad laftirkaaga lagula meeraysto taabo eber si aad uga baxdid haddaba idinka laftirkiinu meelaha meeraysanina kaale anaga nala meeraysta aaminka la isla meeraysan maayo macallimiintii baa xidhan halow oo ila gabigaagaba wanigi soo gaaday la meeraysa lagu yahay eeg te walal waan ku yimi waan kula soo hadlo wadala meeraysta telefoon ku soo wadala meeraysta waan ku yimi wadala meeraysta odayaashii baa idin yimi oo ku yimi wadala meeraysta maanta ila meeraysadii Muuse way soo dhamaanaysaa ila meeraysadii way soo dhamaanaysaa halkan waxa ka socota ila meerayso Xamsi Axmed isku meeray jireen xagga istaal boqoshay boqol ka tagay meelaha aan ka soo jireena inamariba soo noqon maxaa tiri dadaan kula meerayso soo dalkooda meeraysiga kuma jiro meeraysiga diyaar mata diyaar su'aasha koowaad aan ku weydiinaya waxa weeye kelmadda ila meerayso macnaheedu waa ba wax istamarin ta musuqmaasuq
ja indhabeelnimo xa midnaba waa ta oo musuq maasuqa waddo walba oo aad marayso ama baska markaad saaran tahay waxa keliya ee dhegtaada ku soo dhacaya ayaa waxa uu yahay ereyga ila meerayso. Ereygan ila meerayso bulshadu waxay u noqotay ereyga keliya ee afkooda u fudud, waxayna inta badan u adeegsadaan qofka ay la balansan yihiin ama lacag ay ku leeyihiin. Marka waqtigii balanta la gaarana ka meermeeraysta shakhsigii hantida ku lahaa, markaas ayay qofka u adeegsadaan oo ay yidhaahdaan hebelow waxaagu waa ila meerayso, sida ay sharaxayaan qaar ka mid ah dadka hadda adeegsada ereygan ila meerayso. anigu waxaan u adeegsanaa in qofku markuu ballan kuu qabto uu ballan ii sheego ama ballan kuu sheegan kuu jaro qofkaas wuu ila meeraysnay ama been bay ii sheegay weeyaan. bulsho badan baan u shaqeeyaa, hargeysa weyn baan meherad baan ka shaqeeyaa. kelmadda way soo noqotaa, kelmaddaas way soo noqotaa badan wallaahi in badan. salaada laga bilaabo ilaa 5 ilaa 9 subaxnimo kelmaddaas dadka way haysataa. qof kasta yar iyo weynba kelmaddaas way haysataa. horta dayla meerayso waxay ku dhex jirtaa horta si odayga yara sheegay beledkii ku wada jirtaa ma garanaysaa. horta ila meerayso daan horta shay baan u isticmaalaa anu waxaan u isticmaalaa markuu kale qofku dee uu imeermeeriyo calaashaano dee waxaana wax ka doonayo maanta oo dhan imeermeeriyo ayaan u adeegsadaan ku dhaadee in adeer waagsidaay ila meeraysaad wadaaye. haddaba ereygan ila meerayso ma yahay mid sii jiri doona mise wuxuu noqon doonaa mid la iska ilaabo oo halkaa ku baabaa? waa kan Cali Kaamil oo ka mid ah abwaanada ku nool Hargeysa. runtii ereygan waxa uu noqday erey social media ama baraha bulshada meel walba saameyn ballaaran ku reebay. ereygan waxa weeyaan waa erey aad cajiib ah, waxayna ku timid yacni wax kasta oo shaygu markuu cagajiid sameeyo ayaa loo isticmaali karaa. macnaha wax walba iska daba wareega oo laga waayo xal degdeg ah markaaba, ama natiijo aad ku qanacdo ama aad hore ugu baahneed markaad ka heli weydo ayay dadku yiraahdeen ila meerayso. marka anigu aragti ahaan saasaan u arkaa ereygan waa erey aad maaragtay saameyntiisu ballaaran tahay. kula tahay ereygan isaga ah inuu sii jiri doono? wax walba waqti bay leeyihiin. waxaan rajaynayaa ereygan inuu qaadanayo waqtigiisa, iminkuna waqtigiisu uu yahay gabaabsi. marka waxaan rajaynayaa ereygan maahan mid muddo dheer sii soconaya, maahan waa mid waqti iyo ujeeddo iyo time ku soo baxay weeyaan. waan gartay. ma jiraan erey kale ay isku macno yihiin ereyga ila meerayso? wuu jiraa dabcan. waxaan oran karaa maadaama ila meerayso ay tahay wax aad markiiba jawaabaad u baahneed ama howl aad loo baahnaa in markiiba laga falceliyo oo dib loo dhigtay ay tahay, waxaa jira erey kale lid ku noqon karo oo isaga ka soo horjeedi karaa. ereygaas waxaan oran karaa iga warsug. waxba ha degdegin. ila meerayso waxaan ku bedeli karaa iga warsug. marka ereygaani jawaabtiisa saasaan oran karaa, maadaama dadku qofkan ila meerayso soo saaray uu hore u waayay jawaabta u baahnaa, dee wuxuu baahay in la yidhaahdo samir ku dar oo iga warsug ah. ereygan bedelkiisa waxaan oran karaa inuu yahay iga warsug. ugu dambeyntiiba ila meerayso iyo ereygaagan hadda adiga aad bixiso ah bilcagsi ay ku tahay iga warsuga. ma la oran karayaa waa ereyga qarniga ama ereyada qarniga? dabcan waa la oran karaa, weliba gaar ahaan dhammaadka sanadkan iyo soo dhaweynta sanadka cusub. waxaan rajaynayaa inay noqon doonaan labada erey ugu saameynta ballaaran. ereyga koowaadna uu yahay ila meerayso, kan labaadna xitaa heer wuxuu marayaa in goobihii ganacsiga loo bixiyo ereyga ila meerayso. sawirkan idin muuqda waa meherad loogu magac daray ila meerayso ice cream. meheradan waxaa laga aasaasay gobolka Togdheer ee Burco oo inta badan lagu hanto inay tahay magaalada keliya oo wax walba oo dalka ka dhaca markiiba ka falceliya, oo erey bixintana ay ku dheereeyaan. kuwan waa qaar ka mid ah majaajilaystayaasha ku nool gobolka Togdheer, waxaana hogaaminaya Deeq Maroojiye iyo saaxiibadii. waxayna sharaxayaan waxa ay iibiso meheradan ay ugu magac dareen ila meerayso ice cream. waxaan leeyahay marka magaalada soo meeraysataan ee sidii meerayada u soo meeraysataan annagana ice cream nagu soo meeraysataan. waa kan waxay saa Jamal Qaadi iyo Habeenkii Roos iyo Turbadii Sikaawi iyo Jamal Qaadi iyo Gidib iyo Habeenkii Roos iyo afagaadhadii iyo cinabkii iyo shamaamkii wixii oo dhan waa ku haya ilaa mashmash shacabka igula meeraysataan.
ساعكم نقول مريستان هذا العقد نقول مريستان تفضل أنا وأنا أي سكري كان عبارة كلام مريستان كلام مريستان مين hadda garo meeradan ma ahan mid jirta balse ujeedkoodu waa in la yiraahdo meeradii ugu horeysay ee la yiraahdo ila meerayso ice cream waxa laga sameeyay magaalada Burco waxaana sameeyay Hebel Mujaahid Cabdi Ibrahim Cabdulle ereygiisana ila meerayso wuxuu noqday ereygii sanadkan si dhamaanaya ee 2019 loogu hadal haynta badnaa waana ereygii qarniga